halkan aan ku suganahay waa deegaanka Baris Cade ama santarka Baris Cade oo ka tirsan degmada Galaadiyo ee gobolka dowladda deegaanka Soomaalida. Halkan waxa ka jirta jilaal aad u kulul iyo biyo la'aan isbiirsaday. waqti roobaadiyadii ama xilli roobaadiyadii la soo dhaafay oo aan si fiican u helin deegaankan iyo sidoo kale deegaanku aan lahayn wax cilbiyeed ah ayaa waxay keentay in xaaladda dadka halkan ku nool ay noqoto mid aad u daran isla markaana dadka iyo dunyadu aysan haysan biyo ku filan. anigu deegaankaas aan nahay motorkii noo qodmay waa biyihii waa ku dhamaynay dayrtii waana seegtay dunyadii waa aroori weyday boodihii waa iibsan weynay si degdeg ah aan doonaynaa in nala ku soo gurmado dawladdu noogu soo gurmato oo wax noogu qabato si degdeg ilaahay baa wax bixiya waxaan codsanaynaa ilaahay hana siiyo biyo khayr qaba waxaan codsanaynaa si degdeg santarkaas in loo fiiriyo madaxweynaha iyo heer degmo iyo inta ka hooseysa iyo si degdeg in la soo gaaro motorka awgi runta haddaan kuu sheego ilaa 5,000 baa ku nool oo qof haddana 10 qof ama 20 qof ma dhama dadka biyaha gadan karadii booyaduna $130 bay maraysaa markii lacagta Itoobiya la birgareeyana waa 20,000 ma dhici karo dadku adaa xukuma ilaahay baa xukumay madaxweynaha yagi baa tahay waxaan kala garan laanahay inuu ku gaarin cabashadii hore iyo middan hadda ku leenahay iyo inaad madaxweynaha yagi ahayn biyo booyadood ma helnaba waxaanu helnaa booyad la isku buurto oo lagu diriro oo dadku isku laayaan oo tanagii yahay 300 oo bir fuusadii tahay baa waxay noo timaadaa markaan toddobaad joogno mar mid dawladeed ma helno mid hay'adeedna ma helno waa mid shacab oo xoolo loo xaraasho oo qaaliya oo aan dadka ku filnay dhibaatooyinkaas oo dhan baan haysto waxaad lagu gato iyo wax iibi wadanka ka jiraan ma jiraan maadaama deegaanku oo man yahay dad kuma dhiman laakiin xooluhu waa la adeen oo daraadi hal baraaga oo biyo ku jiraan lama arko waxaan codsanaynaa oo maanta isku soo banaan baxnay in ceelka degdeg loo ku qodo qiimaha biyaha oo aad qaali u ah Ramadaan oo lagu jiro waqtiga aad u kulul iyo sidoo kale deegaanku aan cilbiyood lahayn ayaa waxay keentay in xaaladda dadka halkan ku nool ay noqoto mid aad u adag qaybtood dadka oo aan la hadalnay ayaa waxay nooga sheekeeyeen duruufaha nololeed ee aad ku culus ay ku jiraan biyo la'aanta ayagoona xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida ka dalbaday in si degdeg wax looga qabto ceel deegaankan qodistiisa laga bilaabay muddo sanad ka hor ah balse ceelkaas aan lagu guuleysan in laga miro dhaliyo ujeedadii iyo sababihii loo dhisay ahaa in deegaankan iyo dadka ku nool ay munaafacsadaan ama ay ka faa'iideystaan biyihiisa waxaana dadku ay sidoo kale ka sheekaynayaan xaalka guud ee deegaanka iyo duruufaha dhanka biyo la'aaneed ee halkan ka jira iyo sidoo kale qiimaha sareeya iyo sida dadka tabaryaraan ay u tahay oo aysan u awoodin inay biyo iibsadaan iyo sidoo kale waxa kaliya ay ku tiirsan yihiin oo ah xoolaha nool oo iyagana halkaani suuqoodu aad u yar yahay halkan waxa ka jira motor ayaa la keenay muddo hadda laga joogo 13 bilood bisha 14 hadda ay bilaabatay motorkaas markii uu yimid waanu u guntanay annagoo danaynayna baahida aan u qabno iyo oonka aan u qabno biyihii barkadaha ku jiray ceelku way iska barkada yaraa waanu ku dhamayn wixii kale awood aan u heli karayna waanu ku dhamayn sidaas aawadeed motorkaas qadar ilaahay biyo lagama helin ceelkaas waa laga guuray mid kala la bilaabay haatan uu iska taagan yahay asagoo sidii for example iyo wax isbedel iyo wax dhaqdhaqaaqana hadda male nimankii kor joogayna way ku baaba'een way ku rafaadeen way ku nafwaayeen wadanka waxa ka jira jilaal adag oo biyo la'aan leh baahi beec la'aaneed leh baahi dad leh baa ka jira wax baraaguhu biyo kuma jiraan sida xaqiiqada waa la ooman yahay dadkii waxay ku dhaansadaan oo xataa motorada awood ay uga soo dhaansadaan waa waayeen qofkii hadda macnaha baabuur soo qabsan kara waa waayay ayadoo xoolihii wax macaan lagu arag wax la gadanayana lagu arag waxaan codsanaynaa si degdeg ilaahay baa wax bixiya waxaan codsanaynaa ilaahay hana siiyo biyo khayr qaba waxaan codsanaynaa si degdeg santarkaas in loo fiiriyo madaxweynaha iyo heer degmo iyo inta ka hooseysa iyo si degdeg in la soo gaaro motorka awgi biyo la'aan jirtay aan ka cabanaynay muddo dhowr iyo 10 sano ah aan uga cabanaynay dawladda deegaanka
heer gobol heer degmo iyo heer deegaanba intay qusayso biyogelintu haddana asagii baan ka cabanaynaa waxaa noogu soo siyaaday oo cabasho labaad ka nahay matoorka halkan ka taagan oo muddo dhowr sanad iyo xoogaa meesha ka taagnaa waxna aan noo qaban meeshiina ka tegin naga dhammaystay biyihii yaraa ee barkadaha ku jiray dayrtii haddana dhaaftay biyo la'aan baan ahayn dayrtu nama helin annaga roob la'aan bay ahayd wayna seegtay xoogaagii barkadaha ku jirayna asagaan ku qodnay sidaas awgeed baa waxaa nagu soo siyaaday cabashadayadii hore mid ka xoog badan oo ah biyo la'aan iyo meel u dhaqaaq la'aan xaggii xoolaha waa naga jabeen oon bay u jabeen xaggii dadku weli wax ma dhiman laakiin way jabsan yihiin meel aan ugu ridnana ma naqaan xaggii beeraha way wada qalaleen xaggii barkaduhu way marteen xaggii sanadka maanaan helin aad iyo aad baan waxaan uga cabanaynaa arrintaas inay nala ka soo gaaro in wax laga qabto ceelkan qodistiisa in wax laga bedelo dawladdu soo farageliso arrintiisa ama nala ka bedelo ama asaga naloo qodo sidiiba cabashadiisii u nahay kanna in nala ka bedelo oonkana nala ka bi'iyo intaasaannu cabasho ka nahay isugu soo baxnay inaad wax ka qabataanna aannu u codsanaynaa biyo booyadood maba helnaba waxaannu helnaa booyad laysku buurto oo lagu diriro oo dadku isku laayaan oo tanagii yahay 300 bir fuusadii tahay baa waxay noo timaadaa markaan 7 joognaba mar mid dawladeed ma helno mid hay'adeedna ma helno waa mid shacab oo xoolo loo xaraasho oo qaaliya oo aan dadku ku filnayn dhibaatooyinkaas oo dhan baan haysto wax hadda lagu gato iyo wax iibo waddanka ka jirana ma jiraan waan oomanahay cabashadayada ugu weyn waxa weeyaan waa oon ilaahay baan xukumaan laakiin kala sareen sharci markii la eego annaga heer deegaan heer degmo oo degmo Galaadiya heer gobol oo gobolka Doola ilaa heer dawlad deegaan baan la xukumaa ilaahay baan xukumaa laakiin madaxweynahayagu waa Mustafa waan oomanahay aad baan oomanahay ceelku sana ma lahayn biyaha lama gadan karo iib laftigooda iyo macnaha bareefada laguma helo dhibo badan baa iska jira dhibaha ilaahay baa naga kayfinaya hadii ilaahay ku ruuxiya naga sabata bixinaya laakiin waana la xukumaa madaxweyne biyaan ka rabnaa Mustafa waxaan ka rabnaa biyo ilaahay baa biyana siinayay motor 13 biloodna ag yaala oo aan biyana laga helin baadna laga helin sixir barar ka dhacay baraagihii naga dhameeyay biyihii hantidii dadweynaha aan ku bixinay xoolihii noola aan ku bixinay oo waxa nooga soo qabsamay aysan jirin baa wuxuu ag yaala sanad iyo 2 bilood ما شاء الله أمر إلهي بيكون نقطي لكن ما حويني وأنا حكمتها إلهي بأن حكمها مدحونها يجي هير ديجان باتاي دتكي وحانونا هاي دقم قلادي وحانونا هاي دقم قبل كدولة وحانونا هاي دد من دد هدنا دقاله هو سيء أنبيها قدن كريم متورطة ميلها سر الله قطعه سيدا درتي مركب مدحونا وحن كوسا بابيني إن هذا كورنا إيميل لا تكو أركض دونتا أملنا يا إيميديه 3 sanadood ka hor baan anigu madaxweyne Mustafa kugu hayo cabasho dhiimanaya oon baan ku soo wacay waadna aragtay wajigay geedkii baan taagnahay wali sidii baan u oomana santarka Barsacad xuduudda Itoobiya bariga Itoobiya ku yaala waana ku dhow yahay xuduudda wax yar buu jiraa runta hadaan ku sheego ilaa 5,000 baa ku nool oo qof haddana 10 qof ama 20 qof ma dhama dadka biyaha gadan karadii booyaduna $130 bay maraysaa markii lacagta Itoobiya la birgareeyana waa 20,000 ma dhici karo dadku adaa xukuma ilaahay baa xukumay madaxweynaha yagii baa tahay waxaan kala garan laanahay inuu isku gaarin cabashadii hore iyo midan hadda ku leenahay iyo inaad madaxweynaha yagii ahayn biyaha guul labaad ugu dhaweyd biyihii barkadaha galay asagaan ku dhameyn deyrtaanuna nama helin waxaan la liidanaa oon motorkaasna sidaas uu nooga khasaaray waxda ka soo socda farsamaana ma jiraanin shaqaalihii motorka ka shaqeynayna waa iska dul fadhiyaan dhanna kamay aadin annaguna waa ku dul baabaanay oon baan ugu dul baabaanay cabashada hore aan raacaya madaxweyne Mustafa waxaan leenahay madaxweynahaygii baa tahay motorkana hadda ka hor noo amray laakiin khasaarada noocaas ka dhacday waxaan doonaynaa motorkaas si degdeg ah in wax nolol ku qabto oo asaga wax nolol kaga qabto oo annaga wax nolol qabto hadda annaga liidana marka xuna oo aan qodanay
وأول بأن كنا نولين وعبشيد مطور هنلو قضاء أهيد بيهودي أيه كل مادين دايرتنا واسكت دنيادي وحويان باب أوي وو أروري ويدي عيلكي مطوردي كلا وو أروري وي markay matooradu aroori weydana dadka anagu waxaan ku noolahay adduunyo wax kale aan ku noolahay ma jiraan ayadu markay qanacsan tahay ama buuran tahay ama macdahay ama fiican tahay ayadaan wax ku qabsanaa ayadiina waxa weeye wax maanta wax qabanaya ma waa wax baaba ah oo liita geela ugu awood roon geelu macaan ma fiicna arigana warkiisa waa laga bax waxa weeyaan booyado ganacsi ah yaa wadanka jooga booyadahaas ganacsiga ah waxaan ku gadanaa waa weyn wax allaaliya waxaan ku gadanaa booyadahaas waa weyn waxa weeyaan biyooduna waa qaali oo biyo qaali ah oo lacagta in la siiyo mooyaane aan booyada kugu dhaqaaqayn yaa meesha soo gashay cabashadii ugu darayd oo ugu weynayd baan qabnaa baan sheeganaynaa u soo bannaan baxnay matoorkaas waa ku khasaaray waxba noo qaban waayay kambaligii baa ku khasaaray waxaan doonaynaa madaxweyne matoor degdeg in loo qodo matoor degdeg in loo qodo biyo gurmado degdeg in la siiyo aad in loo kugu dadaalo si gaar ah in loo soo fiiriyo anigu deegaankaasaan nahay matoorkii noo qodmi waa biyihii waa ku dhamaynay dayrtii waana seegtay dunyadii waa aroori weyday boodihii waa iibsan weynay si degdeg ah aan doonaynaa in naloo ku soo gurmado dawladdeedu noogu soo gurmato oo wax noogu qabato waxaan leenahay heer degmo heer gobol heer degaan ilaah baa wax qabad leh waxaan rabnaa in wax naloo qabto oo xagga biyaha nala ka caawiyo ilaa heer madaxweyne ilaa heer wasiir ilaa heer gobol ilaa heer center ilaa heer degmo ilaa heer kelil waxaan leenahay si degdega hal kaga soo gaaro waqti kulul baa jira baraagaha waa laga hadlo biyaheedii sanadkii hore galay waxaa lagu dhameeyay matoorada sanadkii dambe biyo ma qabanno dayrta haddaan soo dhaafnay ma qaban ceelka dadku waa ooman yahay dunyadu waa ooman tahay waxaan codsanaynaa mar hore iyo mar dambe iyo mar saddexaadba si guud in wax nala kugu soo degdego oo biyaha nala ka caawiyo oo ceelka qodidiisa nala ka caawiyo dadkii ceelkan qodaya ayana waa ku rafaadeen annana waa ku rafaaday lagumana guulaysan magacaygu waa cabduuli maxamuud macalin gudoomiyaha santarka bari sacade waxaan maanta ka hadlaynaa oo isugu soo baxnay dhib ka jidha ceelkan oo wax badan la qodahayey 13 bilood baa la qodahayey 13 bilood oo la qodahayey laguma guulaysan qoladii qodaysana kuma guulaysan deegaankuna kuma guulaysan deegaankana waxaa ka jidha oon baa ka jira oon adag baa ka jira waxa la yiraahdo barkadihiina way maran yihiin asagiina laguma guulaysan ceel hore waa lagu khasaaray oo halkaas ku yaala kana hadda waa lagu haysmay waxaanu marka codsanaynaa oo ka codsanaynaa deegaan ilaa degmo ilaa gobol ilaa deegaan qolada dooxooyinka iyo biyaha in ceel degdeg ah naloo qodo maadaama deegaanku ooman yahay dad kuma dhiman laakiin xooluhu waa leedeen oon daraadi hal baraaga oo biyo ku jiraan lama arko waxaanu codsanaynaa oo maanta isugu soo bannaan baxnay in ceelka degdeg naloo ku qodo